من إلي ودون أنت والله إله جنة كاورايو أول كاو إله بذكره ما كاوي وحنقول أقول صح يا نقول وحاول قف يعاوي وحاول قف كرسي وحاول بو waxay xasuustaa maalintaas in aan waayey iftiinka indhahayga inaan waayey nolosha macaanteeda inaan waayey wax walbo duni yaal aan waayey waagaas ayadooda ilaahay jannada ka waraabiyo nolosheeda qayb weyn ay kasoo qaadatay qayb weyn ay kasoo qaadatay familkeyga kale aan waayey dhib uma ark laakiin waxaa waayey ahaa beesigeyga ugu weynaa boqoradeyda adduunka nolosheeda adduunka waa ayadeeda macaan maantaa waayey nolosha waxay noqotay mid xun mid mugdi ah mid aan caadi ahayn asalaamu calaykum magacayga Cazaam ahad xarjinaya ina caafimaad qabtid haddii ay tahay marka ku horeysay asoo boqotay youtube-keyga subscribe sar aad baa umaasan tahay haddaan nagtina like taawo share garay saxaabtalgaasi comment waxaad ku soo qor maanta muuqaalada hore ee gudoomiyada muuqaalkan ayaamahani aad baa u maqnaa ayaama almost 3 maalmood ayaa maqnaa waan xanuunsanaa xanuunka ilaahay subhanahu wa ta'ala ii keenay ilaahay iga qaaday shada yar xanuunsan taasna ogaada aad ma sitay dhamaantii soo dhawaada midda aan rabo in aan maanta barnaamij hore ku duunayaa leedahay wax kala maahan yaa waa Cazaam yaa waaye darad snapkeyga instagramkeyga facebookkeyga iyo tiktokeyga ayaan soo dhigay noloshayda saxda ah waagii waxaan ka soo bilaabay aan aqli yeestay waagii hadda aan ku noolahay okay markaan ka soo bilaabo 99kii 1999kii up to 2004 waxaan rabaa noloshayda qaabkii ay heday basically ay heday si noloshayda aniga aan ku noolaa amaan ahaa waayo step by noloshayda ay heday waagaasi 99kii 1999kii waaya 99 kala umalena 1999kii noloshayda ayaa rabaa meesha markaa aqal yeestay markaasi iyo up to now hadda kula hadlayo oo 2004 ah waxaan rabaa in noloshayda aan soo gudbiyo oo documentary waa qor jiray maalmo wax qor jiray marka laga reebo 99kii ilaa 2000 ilaa 2004 wax aan qor jiray laakiin 2005 up to 2004 ma rabo sanad wax qor jiray sanadkan waxa igu soo kordhay iyo waxa iga halaabay iyo waxa iga dhimay iyo waxaan haleeyay iyo waxaan qalbay iyo waxaan saxay wax walba noloshayda ku sabsan waa qor jiray dhawaato ahaato noloshayda aan ahaan dhinkii ahaato kulli waa qor jiray okay waxaan bilaawi doonaa qaybta ugu horeyso waa dhowr qaybood waaye waxaan rabaa qayb walba inaan soo deeyo insha Allah billahi kariim qayb kale way ka xanuun badan tahay nolosha markay tahay basiga way ka duwan tahay nolosha kale noloshayda waagii hore in nolosha maanta haysto alxamdulillah maanta waxaan ahay nin meel degan kaligiisa nin noloshiisa ku filan nin oo wax walba qabsan kara aqli leh fikir kara wax samaysan kara nin kaligiis meel degan nin farxad leh nin farxad qaybsada nin alxamdulillah de hadda xanuunsado iyo hadan jirido nin isbixi kara ayaa hada alxamdulillah laakiin waagii hore ayaa rabaa in step aan ka sheego step ugu horeeyo sanadkii 1999kii ayaan kasoo bilaabaya 1999kii 1999kii ayadii Allah u naxariisto ayaa i kaxeysay waxay i kaxeysay degmada Kaaraan waxay i geysay Shabeellaha Hoose caasimadiisa marka ay i geysay 1999kii
noloshayda basigeeda meesha ka bilaabanayso ayaan sheegi doonaa. Okay, 1999kii ayaan ka baxay Kaaraan, degmada Kaaraan caasimadiis ay tahay Muqdisho ee Soomaaliya ayaan ka baxay. waxaan u jihaystay amaan aaday ayeeyday Allah naxariisto ee igeysay marka caday ee tahay shaqaalaha hoose caasimadiisa. Okay, marko 1999kii maxaa iga qabsaday marka ayeeyday igeysay waxaan ka tagay meel oo dad aan ku leeyahay, asxaab aan ku leeyahay, family aan ku leeyahay, waqti la qaadan karo, la kaftami karo, la sheekaysan karo ayaan ka tagay. waxay igeysay meel qof aan ka aqoonin ka aqoonin bay igeysay. ayeeyday markaasina ma ahayn xumaan ima geenin, laakiin waxay igeysay in noloshayda ay horumar ay gaarsiiso. noloshayda si ay horumar ay gaarsiiso ayeeydayda igeysay marka caday. kadibna meeshii dugsiga quraanka ayaan ku bilaabay, waayo badal Kaaraanka joogay quraanka waa dhamay, laakiin ma aan xifdisnayn. xifdis ma ahayn, waxaan ahaa qof quraanka kitaabka iska akhriyo bis oo wax kale aan kala aqoonin. ayeeday markaas eeday ee igeysay marka caday dugsi oo kala dugsiyada Soomaaliyeed oo maalinkeyga macaan Nuur Allah xafido ay igeysay 1999kii bishii saddexaad ay dugsi igeysay. 2 bilood ana magaalka aan joogno oo magaalka aan joogno dugsiyaasha ayeeyday soo sahamisay ama soo raadisay dugsiga ugu fiican ay soo heshay. markaasi alxamdulillah dugsiga quraanka igeysay. waan xasuustaa maalinta ugu horeysay maalinkii aan la kulmayay dugsiga quraanka ah. maalintaasi waxay ahayd maalin aad ah. mar waa faraxsanaa, waayo waxaan bartay aan arkay arday badan oo ka dhigi karo saaxiibo ka dhigi karo. marna waxaan ka naxay macalinka soo caruurta u garaacayo. maalinkii oo quraanka ii bilaabay oo ku sugnaa Kaaraan, maalinkaasi imaam ma jirin, laakiin maalinkani waxaan arkay ilmaha asoo garaacaya. markooda waan farxay. waxaan ku farxay tahay qaabka oo macalinka oo ilmo badan ka arkayo qoslaayana waan jeclaaday. waxaa ka naxay sida caruurta macalinka u tumaayo quraanka u barayo. macalinka raxmaan ka maahan, laakiin wuxuu ka bilaabay si caruurta u bartaan. ayeeydayda macalinka ay farta iga saartay waxay dhahday, waxaan xasuustaa wallahi erey dhahday, macalin cunugan adaa kuu keenay, ilaahay ka sokow. macalin cunugan lafihiisi anaa iska leh, maqaarkiisa anaa iska leh, hilibkiisa saarta ka yeesho, waa fahmi kartaa. macalinka wuxuu dhahay waa maasan tahay. ayeeyday Allah naxariisto jannada la ka waraabi iyo guusu duceeya. ayeeydayda way iska baxday, dugsiga ayaa fadhiistay. macalinka su-aasha ugu horeysa uu waxay tahay hijaada ma taqaanaa? waxa ma kici kartaa? macalina ku dhahay haa waa kici karaa. loox markaas waayas loox baa isticmaal jirnay, loox qofkii yaqaan la yaqaano, loox qada ah baa isticmaal jirnay. quraankeyga meesha ayaan ku bilaabay, start ku bilaabay. macalinka wuxuu keenay loox ku qoran tahay laqad jaakum rasuulun min anfusikum oo ii keenay. waayo quraanka ma dhammaysan u weydiiyey, haa ma ku dhahay. su-aasha waa aqriyay, kadib macalinku ii fiiristay, wuxuu suwac iga galay. wuxuu fiirnayay quraanka in aan aqaano iyo in kale. quraanka juska koowaad wuxuu ka bilaabay albaqra, waa fahmi waaye. buuqsho buuray wuxuu imaaday juska dhexe imaaday, waa fahmi waaye. juska saddexaad waa fahmi waaye. waa soo buuray macalinka wuxuu imaaday talaada imaaday, talaadana wax waa ka kasay waaye. arbac sidoo kale macalinka uu wuxuu bilaabay faatixada iga bilaabay, alxamdu iga bilaabay. alxamdulillah 2000 marka la gaaray 2000 la gaaray quraankii waa dhameeyay. alxamdulillah macalinka 9 bilood gudahooda ay quraanka igu dhameeyay. 9 bilood ay macalinka quraanka igu dhameeyay, qaar Allah siiyo. kadibna naqtin ayaan bilaabay 2000 naqtin ayaan bilaabay 2003 quraanka xaafido ayaan ahaa. macalinka wuxuu bilaabay inuu i baro sida quraanka loo fasiro, sida quraanka loo barto. wuxuu baray sida ahadiista iyo wax badan aan ka bar qaraasi. okay, iskuulkayga ugu horeeyay waxaan bilaabay 2004. macalinka ay soo dugsi quraanka ka dhameeyay oo kabiir iga dhigay oo rabo in iskuul aan galin oo wax aan galin oo rabi ayuu iskuulka macalin wuxuu ii kabiir. okay, ayeeyday waxay dhahday macalinkaaga
ayaan ku siiyey macalinkaaga qiimeed maamooyinka xaalad duwanaaye waxay dhaheen cunuga wax bartay iskuulgee iskuulka aad u fiican yahay ayadii allah naxariisto iskuul way gey jirtay waxay iskuulka abgaalo wax ma laga baranaayo okay kadibna maalintaas markaa iskuulka oo dugsiga ayadeeda iskuulka ii diiday kadibna aniga asxaabteyda arkaa iskuul aadayeeno oo asxaab bartay iskuul aadayeeno ayay dhigeyso aan iskuulda igeenayno isdilaya camal badda isdeenaya waxaan xasuustaa waan baxay badda aan tagay badda markaas waxa waaye waxaa jirto bad mar qaar waxay noqotaa eber noqotaa waxa waaye waa eber way sikartaa cabaar sikartaa baddii baa dhex galay baddi waxay leedahay waqti koona leedahay oo eber tahay waqti la buuxsantaa beri waa eber baddii baa igu dhex galay madax jaan dambalo kii qala yaqaan dambalihii baa dhex fariistay biyihii soo batay biyihii arkaa ana inta imaraayano luga imaraayano soo socdaano ayadeyda imaatay iraadinayso waa artay ka hilkaaga niman oo naquudiyaal iyo oo dowlataay barisay oo isoo soo dhex galeeno baddi soo batay biyihii arkaa ana inta imaraayaan kadib ayadeyda 2004 waa alxamdulillah iskuul baan ka dhimanaya wax barto okay ayadeyda qarlaasi jamada la ka afartii waaye nimankii naquudiyaasha ahaa dowladtii baa bad soo galay saas baa badli soo dilaayay tabaal maan aqoonin intaas waxa ka dhibinayay wax barasho ideenayso isdila maantaasi ayadeyda waxay ogaatay in aan weynaaday in aqli aan leeyahay niyin ahay oo wax walbana bilisameeyay wax aan sameyn karo waa go'aanka hadda aan leeyahay waa yaraa baa keesadanay go'aan iska yeelama go'aan ka qaato waa qaato leh intaan qofka ay wanaagsanahay aan la qoslaayo wala qosay laakiin maanta go'aan qaato waa qaato okay ayadii Allah naxariisto isku soo waday xaabada ay keentay macalinka tutor macalin hee inagaaga ku duceena qeer la ku siiyo qaarantii siisay waxay dhahay macalin hee wiilkan waxa rabaan iskuul geeyo uu qaado macalinkii soo ka xun oo hayo dhahay iskuul baan geeyay qofkii qaaraya qaado iskuul oo marka ku yaalo oo la jiray الرحمن iskuul laha baa lii geeyay waayaasna xisaabaadka waxaan ahaa qof maskaxdiisa fadhisa because wax walba darbi ku qoran akhri jiray waxaa xasuustaa darbiyaas ku qoran aan ka suwaayay waa soo qoraa xaasha ku soo qoraa ingiliishi igu hore isku dhigi jiray waxaa mid jiraan oo weynayeen ayaan u maal jiray waa tusjax jiray maxaa eryan way akhrinayaan erayga akhriyaan aan yaxbina safgarena magacayga aan iskuul dhigin baan ay qori bartay xisaabaadka waa bartay iskuulka la geeyay waxaa la weydiiyay xasuustaa af carabi ma taqaana ba aqoon laakiin de quraan ba aqaanay si xalo qoro quraanka ba aqaanay iyo xadiis waxa aqaanay xadiis aan weydiiyay waa ka jawaabay dan macalinkii iskuulka fadhiyay wuxuu ifriisay gaad afraad أنا أسكون مشاريري وأخر إفريسي وإفريسي حسابات كلفتا أي برتي أو كدكتا يقيدنتا سوماليغا بلانا كسو برتي وحون أي بلانا وحون باقي بلانا أوكي بس معني كي أفراد إفريسي أفراد كا إفريسي بات عصب بوش عصب يونيفونا وطا وواضح حستا بلوك يعبانا وطي وطا مجتك فديا waxa sameeyaan garwaasiye macalinku wuxuu qoraa fartayda waxa xasuustaa waxa qurbiga qalqalo si xun ah dan iskuulkii afaadka ka bilaabay sanadkii koowaad hadaaban baa waa dhacay macalinku ayuu sheegay ka hada wax barto dhahay waa kala soo bika aniga waxa barta laakiin de imtixaanka maxalla si maxalla Soomaaliga waxa la jiri biology iyo intaad la jiri biology iyo science waxa la jiray geography iyo Soomaali la jiray waa ismi Soomaali la jiray okay waa fahmi waay gobolada waxa la qojiray waa fahmi waay okay marka labaad afraadkii asal waa fiistay asaageega ahaa shanaad ay gudbeen afraadkii fiistay waa 2005 kadibna ayadeyda ismaana ay qabatay oo habeen buudiyo ibaro alxamdulillah sanadkii labaad taariikh uu horeeyay waxaan galay kaalinta todobaadan galay waa soo fiicnaaday waa ku gaasaaray sanadkii afraadkii bishanaa u gudbay lixaa u gudbay 2009kii dugsi sare baan bilaabay dugsi sare baa 2009kii bilaabay waxbarashadeeda kadibna ayadeyda markaas 2008 markaa dugsi dhexe
oo anoo waxyar ay dhiman yahay baa soo guurnay markadii khalaas yaraan dhaceen waa ka soo guurnay waa soo baxnay waxaan soo aadnay carigan Nairobi Kenya aan soo aadnay inta Kenya soo aadi ka hor xamar ba igeysay xamara bilooyin joogay kadib waraaqooyinkeyga iskuulaadka ay soo qaaday waxay keentay Nairobi qofkii yaqaano Nairobi ay keentay Nairobi waxay keentay waxbarasho waxbarashada ayaa ahaa mid adag ayay dib bay idin celisay hoose ceelasha biyaha waayaasi qax baa jiray dadka soo qaxayay xamar soo qaxayeen ay soo qaxayeen ceelasha biyaha iyo la foole iyo aggoon dhulkaasi ceelasha biyaha ayaa maanay ayaan ka imaanay noloshayda meesha ay ka bilaabatay basicgeyga noloshayda meesha ay ka bilaabatay asaasigeyga waxbarashadeeda meesha xoog ku saaray 2011kii dugsiga sare waayaasi form 1 iyo form 2 hal sano isku qaaday jiray waxa imaaday beed kala imaaday beedas kalena waxa la baranay iskuulka SYL luqadda English ay ku baxay Soomaali ku bixin English ay ku baxay hal maad Soomaali sa jirtay inta kale wuxuu ahaa history geography iyo mathematics iyo waxaas English ah chemistry waxaas la dhigay physics midjibin Soomaali habadu ah laakiin English kii bilaabna English sare aan form 1 iyo form 2 aadagtay noloshayda waxaan badnaa ee meesha ka bilaabatay ayeeyda ayaa iga dhimatay marka ayeeyda dhimatay noloshayda waxay noqotay mid ugu xun ebed ay soo marto laakiin alxamdulillah inta noloshayda ayeeyda inay leedahay ay wax badan i bartay oo ahaa inaan dadka ixtiraamo inaan dadka aan dhigin inaan dadka aan caawiyo inaan qof aan dhaawicin qalbi aan dhaawicin qof badan aan ka bixin wax badan ay bartay ayadoo wax bartay hadheeray wax walbo oo dunida yaalo haddii ay salaadaada ka har waxaas ka dhaaf bin aadam ku dhaho wax baa ku sameynaa laakiin oo kugu xujeeyo waxa diinta ka baxsan ayadoo waxay dhahday hawliga ha sameyn heerkaad aan taaganahay ilaahay ka sakow ayadoo soo baxa noloshayda maanta kula hadlayo alxamdulillah fiicanahay ma sha Allah laaga waagaasi 13kii iyo 11kii ayadoo makan waaye dhimatay 2012 ayadoo waaye ayadoo markii dhimatay noloshu waxay noqotay mid cariiri ah noloshayda bilaabatay nolosha mid u xun baa ay bilaabatay waayo waxaan nolaa abti ayaan nolaa mariga inaan sheego private oo familkeyga ah dhibaatada waxaas ku inaan sheego ma habboon laakiin sa aniga ahaantayaan ka hadlaya waxaan noqday qof wax waayey familkeyga kale ay waayey dhib ma arag laakiin waxaa waayey ahaa basicgeyga ugu weynaa boqoradeyda adduunka noloshayda adduunka waa ayay macaan maanta waaye noloshu waxay noqotay mid xun mid mugdi ah mid aan caadi ahayn maalintaasi ayaan ogaaday in aan agoon ahay maalintaasi baan ogaaday in agoon aan ahay in agoon ahay aan ogaaday maalintaasi maalin ahayd noloshayda eeg xanuun badneed waayo ayadii waxay aheeday saaxiibteyda qaaliga ayadii waxay aheeday noloshayda ayadii waxay aheeday wax walba dunia ay aheed waayo dhiga waxaa weydiinay ima dheheen haddii isageenu i raayi jirtay ayadeyda Allah u naxariisto wax walba oo baahdo may ima dhihi jirin ama iibadii jirin way sii jirtay asaageyga uu fiicnaa asaageyga ninka ugu fiicnaa baha ayadii waxaa xasuustaa wallahi taleefanka ugu horeeyay ee Soomaaliya soo baxo oo been ahaa oo la qabtay wasiiro هذا قفك إيجابه هي تلفكنا أباهنا ولا إيجاد تلفون بدنا نجي واحد كست أباهنا أيبي نمشي السجرتي ما أنت واي مركز أوجابي إن أظن
maantaasa ogaaday inaa ahay agoon, inaan nolosheeda kul i noqoto ay reeri. maantaasa ogaaday inaan nolosha dunida kule ku lahay dabacday. maantaas maalin ugu xun ma isoo barin ilib nolosheeda. waxaan xasuustaa maalintaas in aan waayey iftiinka indhahayga, inaan waayey nolosha macaanteeda, inaan waayey wax walbo dunida yaal aan waayey waagaas. ayeedeeda ilaahay jannada ka waraabiyo, nolosheeda qayb weyn ayay kasoo qaadatay, qayb weyn ayay kasoo qaadatay. min iloow doon intaan noolahay, ilaahay jannada ka waraabiyo, abaalkaaga ilaaha gudi karo. markaa waaye waxaa noqday agoon sax ayaa noqday. waxaa waaye qof i caawiyo, waxaa waaye qof garab i siiyo. waxaa waaye wax walbo waa waaye ayeedeeda nolosheeda wax badan ka qaybsatay, nolosheeda wax badan ay la qaybsatay, wax walbo ay siisay. ayeedeeda si bulshada ee bartay, wax walba siisay. laakiin maalinta aan waaye, maalintaas waxaa noqday maalinta dunida xanuun badneed. nolosheeda waxay noqotay mugdi. maalintaas waxay noqotay maalin dunida xanuun badan. asxaabta la socda baarta 2 insha allah qaybta dambe la socda baarta 2 waa dhowr qaybood waa nolosheeda insha allah aad ma santi dhamaantiin sharafi karam ku noolaada nolosheeda zaid ay soo xun tahay qaybta kasii xun